habeen wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markaan wararkii warbixinada ugu xiisahay xamaasada badnaadaan oo kala runsheeg media ka daawi jirteen waxaa kamid ah ra'iisul wasaare khayr oo mas'uuliyiin qarsoodi ah u diray Kismaayo Abu Mansuur Robow oo diiday in la sii daayo shirqool la damacsan yahay awgeed ganacsatadii ku hantibeelay dabka ka kacay suuqa Bakaara oo arin naxdin la banaanka keenay qodobadaasi iyo qodobo kale idin qarinaya ku daawo doonta barnaamijkeena hadduu eebidmo siday inoo sheegeen ila wareedyo loo kalsoon yahay waxaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ay gaareen magaalada Kismaayo kuwaas oo xukuumadda ay dana gaar ah u dirsatay ilahaan xogtani ka helnay oo ka gaabsaday in aan xigano magacooda ayaa waxa ay la kulmeen wax is hortaag ah maadaama ay mas'uuliyiinta dawladda aysan tagi karin Kismaayo deegaanada Jubbaland waxaa hore looga diiday xubnaha ka baxay Muqdisho oo dawladda federaalka ka tirsanaa kadibna looga soo celiyay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dagaal siyaasadeed oo cirka iyo dhulka ah la dhaxeeyo dawladda dhexe isla markaana hadan uu sii akirmay isku soo dhawaanshihii la filayay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in maalmahani dambe ay socdeen qorshe lagu doonayay soo deynta Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo dawladda ugu xiran Muqdisho waxaa la sheegay in beesha uu ka soo jeedo Robow ay wadaan sidii loo sii deyn lahaa oo siyaasiyiin iyo waxgarad iskugu jireen kuwa dawladda kala hadlay soo deyntiisa Mukhtaar Robow ayaa sheegay in qalad lagu soo xiray sida awgeedna uusan diyaar u ahayn gafkii laga sameeyay in la yiraahdo iska bax wasiirro hore qaar hadda dawladda ka tirsan ayaana la sheegay inay isku dayeen in Abu Mansuur laga soo raro xabsiga uu ku jiro balse uu iska diiday bishii December bilowgeedii ayaa Robow lagu soo xiray magaalada Baydhabo xilligaasna waa la bahdilay oo isagoo shahaado musharaxnimo la siiyay ay ciidamada jir dileen kadibna soo xireen oo diyaarad loo soo saaray magaalada Muqdisho xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa ay noqotay in Robow juqdiisi la waayay oo xarunta nabadgelyada ay leedahay lagu xayiray ganacsatada Soomaaliyeed ee ku hantibeelay dabkii ka kacay habeen ka hor suuqa Bakaara waxay ka hadleen xaddi ahaan inta uu la eg yahay khasaaraha dabkaasi uu ka dhashay dabkaasi ayaa si gaar ah u saameeyay goobaha hudheeda lagu iibiyo dad badan ayaana hanti badan ku waayay qaarkood waxay u sheegeen warbaahinta in kumanaan kun oo dollarka Mareykanka ay ku waayeen dabka ayna hadda u baahan yihiin caawinaad sidoo kale waxaa jirta in dawladda lagu eedeeyay in dabkii markii uu basbeeliyay hantidii ay timid oo waxba laga qaban karin